أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال kusoo dhawaada channelka aqoon official haddii aad channelka cusub tahay subscribe saar muuqaalkan like garee haddii aad hore noola joogtayna la socod wanaagsan saaxiibayaal waxaan ku jirnaa xalinta imtixaanka fasalka form 4 2023 maantana waxaan xalinaynaa maadada juqraafiga la socod wanaagsan waxaan la socodsiinayaa anoo Cabdinaasir Cali ah waxaan ku hormaraynaa qaybta koowaad goobageli su-aashani koowaad geology handasada waa cilmiga quseeya ba dhismaha guryaha ta barashada carada ja heerarka kala duwan ee waxbarashada xa ilaha tamarta dabiiciga ah haddaba jawaabta saxda aan ka dooranayno waa xarafka ba dhismaha guryaha ayayna noqonaysaa haddii aan fiirino su-aasha ku xigta ee labaad haddii aan fiirino waxaa lagu qiyaasaa da'da dhulka ku dhowaad ba 2,000 oo milyan oo sano ta 3,000 milyan sano ja 4,000 milyan sano xa 5,000 milyan sano haddaba jawaabta saxda ah waxay noo noqonaysaa xarafka ba 2,000 milyan sano haddii aan fiirino su-aasha ku xigtay saddexaad gobollada kulaaleyda ah waxa ay ku fidsan yihiin gobol badhka waqooyiga iyo koonfureed inta u dhaxaysa jawaabta saxda ah ee aan ka dooranayno waa xarafka xa 5 digrii ilaa 23 digrii waqooyi iyo koonfur su-aasha afraad haddii aan fiirino roobabka gobolka badhaalaha waxa uu kordhaa xilliyada jiilaalka iyo xagaaga gu'a iyo deerta jiilaalka iyo gu'a deerta iyo xagaaga haddaba jawaabta saxda ah ee aan ka dooranayno waa xarafka ta gu'a iyo deerta ayay noqonaysaa oo jawaabta saxda ah waa xarafka ta ah haddii aan fiirino su-aasha ku xigta ee shanaad haddii aan fiirino magaalo madaxda gobolka Bakool waa magaalada ba Bu'aale ta Qansax Dheere ja Xudur xa Jallaqsi haddaba jawaabta saxda aan ka dooranayno waa xarafka ja Xudur ayay noo noqonaysaa haddii aan fiirino su-aasha lixaad waxyaabaha aadanaha la xiriira ee saameynta lifaaqsanaanta dadka waxaa ka mid ah jawaabta saxda ah ee aan ka dooranayno waa xarafka ta xirfadda ayay noo noqonaysaa haddii aan fiirino su-aasha ku xigta ee toddobaad socdaal aqooneed waxaa loola jeedaa socdaal waxaan ka dooranaynaa xarafka saxda ah socdaal cilmi baaris oo xarafka ja ah ayay noo noqonaysaa su-aasha sideedaad haddii aan fiirino Soomaaliya waxa ay dhacdaa inta u dhaxaysa loolalka aan ka dooranayno waa xarafka jawaabta saxda aan ka dooranayno waa xarafka ba 2 digrii koonfurta 12 digrii waqooyiga gobol badhka su-aasha sagaalaad haddii aan fiirino qalabka lagu cabiro cadaadiska gibilku waa heerkulbeeg roobbeeg hectometer barometer jawaabta saxda ah waa xarafka xa barometer ayaan ka dooranaynaa su-aasha ku xigta ee tobanaad xayawaanka dubligu waxa uu ku nool yahay gobol cimileedku ba badda dhexe cirifka qaboobaha lama deegaanka mansuunta haddaba jawaabta saxda ah waa xarafka ta cirifka qaboobaha qaybteeni labaad waa isku aadin qaybta ba ku aadi qaybta ta haddii aan fiirino su-aasha koowaad gaadiidka dhulka waxaa ka mid ah wuxuu ku beegmi doonaa tareenka ayuu ku beegmi doonaa su-aasha ku xigta ee labaad awoodda dowladda waxaa saameyn ku leh goob juqraafi ahaaneed su-aasha saddexaad haddii aan fiirino noocyada dalxiiska waxaa ka mid ah madadaalada ayaa ka mid ah su-aasha afraad haddii aan fiirino tiirarka gidiska waxaa ka mid ah wax soo saar dheerida ayaa ka mid ah su-aasha shanaad haddii aan fiirino waxyaabaha saameynta ku leh tirada dhalashada waxaa ka mid ah sababo xagga bulshada ah ayay noo noqonaysaa aad u mahadsantihiin halka ayaan kusoo gabagabeyneynaa maadada juqraafiga qaybtii koowaad iyo qaybtii labaad la socda qeybaha xiga muuqaalkan like garee haddaad ku cusub tahayna
subscribe saar channelka mahadsanidin.